Antoine Griezmann. difaacadayaasha horyaalka dalka Spain ee La Liga ayaa ugu dambeyntii jimcihii si rasmi ah u bixiyay lacag gaaraysa 120 milyan oo euro oo ahaa lacagtii lagu burburinayay heshiiska uu kula jiray kooxda ka soo jeeda garoonka Wanda Metropolitano. Blaugrana ayaa barbareysay lacag ay ka soo bixisay Philippe Coutinho suuqii January sanad ciyaareedkii 2018 kadib markii ay ku dhawaaqday saxiixa laacibka reer Faransa ee Antoine Griezmann. naadiga reer Spain ayaa haatan suuqa gelisay lacag ka badan koox kasta oo Yuruba tan iyo sanad ciyaareedkii 2014 sida laga soo xigtay shabakada caanka ee lagu magacaabo Vetaball International. xidigaha Luis Alberto Suarez, Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Malcolm Frankie de Jong ayaa ka mid ah saxiixyada ugu qaalisan shantii sano ee u dambeysay oo ay sameysay naadiga Barcelona. kooxda reer Catalonia ayaa xitaa ka badan naadiga Manchester City lacagtii suuqa ay gelisay shantii sano ee ugu dambeysay. kooxda Sky Blue lagu naaneysa ayaa ku jirta booska labaad iyagoona suuqa geliyay lacag dhan 895 milyan oo euro tan iyo sanad ciyaareedkii 2014 halka kooxda dariska ee Manchester United iyana kaalinta saddexaad ay kaga jirto suuqii 2014 ilaa waqtigan iyagoona qarash gareeyay 799 milyan oo euro. arinta la yaabka leh ayaa kooxda ku guuleystay Champions League ee Liverpool ay kaliya suuqa gelisay 641 milyan oo euro tan iyo sanad ciyaareedkii 2014. haddaba maxaad ka taqaanaa 10 koox ee suuqa kaliibsiga ciyaartoyda qiimihii ugu badnaa ku bixiyay tan iyo sanad ciyaareedkii 2014. Barcelona ayaa muddada suuqa gelisay lacag gaaraya 969 milyan. Manchester City oo labaad ku jirta 894 milyan. Manchester United oo saddexaad ku jirta 799 milyan. Chelsea oo afraad ku jirta 785 milyan. Juventus oo shanaad ku jirta 779 milyan. Atletico de Madrid oo lixaad ku jirta 718 milyan. Paris Saint-Germain oo toddobaad ku jirta 694 milyan. Real Madrid oo sideedaad ku jirta 677 milyan. Liverpool oo sagaalaad ku jirta 641 milyan. halka kooxda reer Talyaani ee ka soo jeeda caasimada dalka Talyaaniga AS Roma ay suuqa gelisay tan iyo 2014 qiimo lacageed gaaraya 562 milyan.